السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كصدحات أي كتاب رياض الصالحين waxaa dhex inoo joogay baabkii ka hadlayay towbada wuxuu ka bilaabanayaa casharkeena maanta. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال: قيسوا ما بينهما. فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها. حديث كلواتنات waxaa laga wariyay Abi Saciid Sacd bin Malik bin Sinan al-Khudri radiyallahu anhu. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri: dadkii idinka horeeyay waxaa kamid ahaa nin dilay 99 nafood. kadib wuxuu weydiiyay dunida qofka ugu cilmiga badan. waxaa loo tilmaamay nin caabid ahaa uu u yimid ninkii wuxuuna yiri isagu wuxuu dilay 99 nafood wax toobada miyuu leeyahay? yacni waxaan dilay 99 qofood miyaan ka toobad keeni karaa arintaas? caabidkii wuxuu yiri maya, isagana wuu dilay oo wuxuu ku buuxiyay 100kii. kadib wuxuu weydiiyay dunida qofka ugu cilmiga badan. waxaa loo tilmaamay nin caalim ah wuxuuna yiri markuu la kulmay caalimkii isaga wuxuu dilay 100 nafood wax toobad ah miyuu leeyahay? wuxuu yiri ninkii caalimka ahaa haa, oo yaa u dhaxeeya isaga iyo toobada? yacni maxaa diidaya inuu ka toobad keeno? aad tag dhulka heblaayo waxaa jooga dad caabudaya Allah kor ahaaye, la caabud Allah iyaga la jirkood, yacni la cibaadeyso iyaga macooda, hana u laaban dhulkaaga hore maxaa yeelay waa dhul xun. wuu tagay ninkii markuu gaaray wadada bartamaheeda geeridii ayaa u timid. waxaa ku dooday dhexdiisa malaa'igta raxmada iyo malaa'igta cadaabka. malaa'igtii naxariista waxay tiri wuu imaaday isagoo toobadkeen ah, qalbigiisana uu soo qaabilay Allah sareeyay. malaa'igtii cadaabka waxay tiri ninkan weligiis wax khayr ma uusan samayn. malak ayaa wuxuu ugu yimid suurad bani aadam oo kale. waxay ka dhigteen malagii garsoore
wuxuu yidhi malagii cabira yacni mitireeya labada dhul inta u dhaxaysa miduu u dhowaa ayaa iska leh yacni hadduu u dhowaa dhulkii uu ku toobad keeni lahaa waxaa qaadanaysa malaa'ikaturaxma haddii kalena malaa'ikatulcadaab way qiyaaseen oo cabireen waxay heleen yacni ay arkeen inuu u dhow yahay dhulkii uu doonayay yacni inuu ku toobad keeno sidaas darteed waxaa qibdootay yacni nafta ka qaaday malaa'ikaturaxma riwaayad kale oo ku sugan saxiixa waxay leedahay dhulkii wanaagsanaa ayuu taako u dhowaa kadib ehelkeeda ayaa laga yeelay riwaayad kale oo saxiixa ku sugan waxay leedahay allah sareeye ayaa u waxyeeday dhulkan inuu fogaado midkaasna inuu soo dhowaado kadib wuxuu yidhi qiyaasa yacni mitireeya waxay heleen oo arkeen midaan inuu dhow yahay taako waana loo dembi dhaafay riwaayad kale waxaa ku sugan xabadkiisa ayaa dhankiisa u durkay وعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك waxaa laga wariyay cabdilaahi bin kacab bin maalik wuxuu ahaa kacab hogaamiyihiisa carruurtiisa xaggoodan ka ahaaday kadib markuu inabeeray kacab wuxuu yidhi waxaan maqlay kacab bin maalik radiallahu canhu oo ka sheekeynaya qisadiisa markuu ka haray rasuulka sala allahu calayhi wasalam duulaankii tabuuka dhexdiisa qaala kacb لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد كعب وحويري كما هرين رسولك صلى الله عليه وسلم دولان دولي أبد دقالك تبوك موياني هيا شيء أنيقو وحان كهري دقالك بدر أومان حاضرين قف كهري دقالكاسنا لما عنانا محايلي ويبحين رسولك يا مسلمين تبا إيقو دوني سفرك قريش إلا أؤلك كلمي إيقا إيعادو غودة بلن لآن ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها هسئ هاته وحان لحاضر رسولك صلى الله عليه وسلم هبينكي عقبة قورتان كوهشيني إسلامك mana jecel inaan ku badasho habeenkaas caqaba ghaswadii Badr haba ahaadee duulaanka Badr mid aad u sheegid badan dadka dhexdooda فكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عددا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد والمسلمون مع رسول الله كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان qisadayda waxaa ka mid ahayd markaan ka haray rasuulka sallallahu alayhi wasallam dagaalkii tabuuka ma aysan jirin mar aan ka xoog badanahay kana xoolo badanahay goortaan ka haray rasuulka sallallahu alayhi wasallam duulaankaas wallahi arinkaas ka hor waligee maan kulmin laba gaadiid ha yeeshee duulaankaas waan kulmiyey rasuulkana sallallahu alayhi wasallam muu doonin duulaan ilaa uu xeeladeysan jiray meel kale
ilaa ay ka dhacday qaswadan. Wuu duulay rasuulka sallallahu calayhi wasallam kuleel daran dhexdiisa, yacni isagoo waqtiga uu aad u kulul yahay. Wuxuu rasuulka sallallahu calayhi wasallam ka hortagayay safar aad u fog oo lama deegaan ah, wuxuuna ka hortagayay tiro fara badan, yacni cadow aad u badan. Wuu u cadeeyay rasuulka sallallahu calayhi wasallam muslimiinta arrinkooda si ay isugu diyaariyaan duulaankoodaas isaga ah isu diyaarintiisa. Jihadii uu doonayay ayuu u sheegay. Muslimiinta rasuulka la jirtayna aad ayay u fara badnaayeen, mana uusan ururinaynin kitaab xifdiya, yacni wuxuu ula jeedaa diiwaan, ma uusan jirin. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا. ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي. فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. Kacab wuxuu yidhi, qof baa yaraa doonayay inuu dhunto oo isqariya ilaa wuxuu moodayay inay qarsoomayso arrintiisa, yacni aan la tawaynin inuu waxay kusoo dego mooyaane. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuu duulay duulaankaas markii ay mirihii bislaadeen, harkiina uu macaanaaday. Anigana iyada yacni harkaas xaggiisan u leexanayay. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuu diyaar garoobay, isaga iyo muslimiintaba. Waxaan gudagalay inaan kalaho si aan isku diyaariyo isaga la jirkiis. Waan soo laabanayay anigoon waxba soo qaban. Nafsadeeda waxaan ku dhahayay, yacni aan ku qancinayay, anigu waan karaa inaan isdiyaariyo goortaan doono. Kama zuulin inuu arrinku ila dheeraanayo ilaa ay dadkii qaateen dadaalkoodii ay muddo ku qaateen. Rasuulka alle sallallahu calayhi wasallam wuxuu waabariistay isagoo jarmaadaya oo kala haya isaga iyo muslimiinta la jirtayba. Haddana waan kalahay, waana soo laabtay anigoon diyaargarowgaygii waxba ka soo qaban. Kama zuulin inuu arrinku ila fogaanayo ilaa ay ka degdegeen, colkiina uu fogaaday. Waxaana hamiyey inaan rarto, aan haleelo, yacni aan ka daba tago. Alle shalaytadayday maxaan u samayn waayey? Laymana qadarin arrinkaas aniga. Waxaan bilaabay markaan dadka soo dhex qaado rasuulka alle bixitaankiisa kadib inay imruggelinayso inaanan arkayn qofaan ku daydo, yacni aan isdhaho qofkan ayaa kula mida aad ku dayan kartaa, ilaa qof lagu tuhmayo munaafiqnimo mooyaane, ama qof ka mida dadkii uu alle u curdaaray mooye oo kuwa taagta daran ka mida. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون.
rasuulka sallallahu alayhi wasallam ima xusuusan ilaa uu gaaray Tabuuka. Wuxuu yiri isagoo dadkii dhex fadhiya Tabuukana la joogo, muxuu falay Kacb bin Malik, yacni aaway oo maxaa ku dhacay Kacb bin Malik. nin ka mid ah reer Bani Salima wuxuu yiri rasuulkii Allah waxaa celiyay labadiisii maryood iyo fiirfiirin uu fiirfiirinaya labadiisii dhinac. wuxuu ku yiri Mucaad bin Jabal waxaad dhahday xuma, wallaahi rasuulkii Allah kuma naqaan waxaan khayrka ahayn. wuu iska aamusay rasuulka sallallahu alayhi wasallam. isagoo sidaas ah wuxuu arkay nin dhar cad xiran oo dhaan dabagaaluhu la ciirciiraayo. rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri naqo Abaa Khaythama. waxaa cadaatay inuu yahay isaga Abaa Khaythama al-Ansaari. wuxuu ahaa ninkii sadaqaystay suuskii timirta ahaa goortay dureen munaafiqiinta. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل، حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 89 رجلا، فقبل منهم علانيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى، حتى جئت. فلما سلمت تبسم تبسم المغضب. wuxuu yiri Kacb markay isoo gaartay rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam inuu soo jihaystay isagoo ka soo laabanaya Tabuuka, waxa igu soo degay murugteedii, yacni anigoo isleh maxaad kala hortagaysaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam. waxaan bilaaway inaan beenta xusuusto, aan la dhaho maxaan uga baxayaa rasuulka Allah sallallahu alayhi wasallam caradiisa. arrintaas waxaan u kaalmaysanayay qof kasta oo ra'yi leh oo ehelkayga kamida. markii leegu yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu ina soo hareeyay isagoo soo galaya, waxaa iga zuulay baatilkii aan isku hagaajinayay ilaa aan ka gartay inaan ku badbaadayn waligay rasuulka xagiisa sallallahu alayhi wasallam. waxa kan yacni beenta. waxaan goostay urun sheegidiisa. rasuulka alla uu waabariistay isagoo soo galaya. wuxuu ahaa markuu safar ka yimaado masjidku ka bilaabi jiray 2 ragcadood buu ku dukan jiray, kadib ayuu u fariisan jiray dadka. markuu arrinkaas sameeyay waxa uu imaaday kuwii ka haray iyagoo cudur daaranaya una dhaaranaya isaga. waxay ahaayeen 80 rag. wuxuu aqbalay daahirkooda uuna la baayactamay, dambi dhaafna uu u weydiiyey. waxa uu qarsoonaana Allah buu u daayay ilaa anigu aan ka imid. markaan salaamay wuu dhoola cadeeyay, qof caraysan dhoola cadeyntiisoo kale. ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق.
فقم حتى يقضي الله فيك. kadib wuxuu yidhi kaalay waan imaaday anigoo socda ilaa aan ka fadhiistay hortiisa. wuxuu igu dhahay maxaa ku reebay, miyaadan soo iibsan gaadiidkaaga? wuxuu yidhi waxaan ku dhahay rasuulkii allow, haddaan hor fadhiisan lahaa qof kale aan adiga ahayn oo ahlu dunyaha ka mida, waan garan lahaa inaan caradiisa cudurdaar kaga baxayo. waxaa laysiiyey fasaaxad, laakiin wallaahi waxaan gartay haddaan maanta kuu sheego war been ah aad iiga raali noqonayso inuu alle la soo degdegayo inuu igu kaa caraysiiyo. haddaan kuu sheegana war run ah aad iiga xanaaqayso, waxaan rajaynayaa ciribta alle ee wanaagsan. allaan ku dhaartee inaanan wax cudurdaara lahayn. wallaahi weligee ma aanan ahayn mid ka xoog badan kana xoolo badan markaan kaa haray adiga. wuxuu yidhi Kacab, rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi amaa midkaan run buu sheegay, taag oo iska tag intuu alle arrinkaaga ka xukminayo. waxaan ku dhammaystiri doonaa khisadan cashirka xiga insha allah.